بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم dadka reer Djibouti ee qaaliga ah muwaadiniinta qaaliga ah dal iyo dabadba jooga salaamu calaykum walaalayaal waxaan rabnaa inaan isla aragnay inaan xoojino tusaalooyinkii iyo tilmaamihii aanu inugu baaqnay meetingkii ugu dambeeyay aan ku qabanay xaafadda Sheekh Muuse jimcihii bishu markay ahayd 31 October 2025 walaalayaal dhammaan reer Djibouti waxay isu raacsan yihiin inuu dalku uu ku jiro xaalad halis ah waa xaalad halis daran ay sabab u yihiin koox yar oo calool u shaqaystayaal ah oonan dan ka lahayn dal iyo dadba farafaraynta la farafareeyay dastuurka waa musuq iyo wax isdabamarin aanan sharci iyo sharaf midna lahayn oo wuxuuna sharci iyo sharaf midna u lahayn waxa la rabaa in kursiga daa'iman lagu sii fadhiyo kadibna la dhaxalsiiyo qof maanta farta inuu uga fiiqay waa xaalad murugo leh waa xaalad ciil leh runtii reer Djibouti dhammaantood iyo dhalinyaradaba si gaar ahaanba waxay oo dhalinyaradaas oo ah isha ugu muhiimsan ee mustaqbalka ay u ooman yihiin in ay dhibaatada ay ka baxaan sida uu nabar walba u leeyahay qaab looga bogsado qaabka ay bulshadu uga dawoobi lahayd cudurrada iyo nabarrada uu nidaamkani uu ku talaalay waxa kow ka ah in la iscabiro oo la hadlo in la iscabiro la hadlo maadaama uu waqtigu inagu qasbayo oo dastuurkii 1992 aynu ku heshiinayna inoo banaynayo waa inay iscabiraadeenu cirka ay isku shareerto oo ay diirka dhexmarto ay lafta ay ku duxdo guri kasta oo laga guuxaya guuxaasi waa inuu guriga kale uu u tallaabo guuxa laga guuxaya xaafad kaste waa inay u tallaawdo xaafadda kale waqtiga la hadlaya waa hadda goobtuna waa meel walba oo la joogo aaladuna waa aalad kaste oo la isticmaali karo walaalayaal xorriyadu waxay bilaabantaa qofku markuu go'aansado inuusan aamusin inaynu aamusin halku dhigi aynu lahayn ee ahaa Djibouti pays de braves inuuna inaga noqon erey afka lagu celceliye waa inuu si run ah oo la taabsan karo oo inaga noqdaa oo adduunka oo dhanna uu arko dhalinyaroy mustaqbalkiinu halis buu ku jiraa dhalinyaroy firfircoonidu halkiina ayay jirtaa dhalinyaroy tiradu halkiina ayay jirtaa furaha isbedelka ininka haya food baan cabbi iyo waan fadhiyi waa laba shay oo la isla waaye marka fadhiga waa in ay ka kacdiin ugu dambeyn waxaan la hadlaynaa madaxweynaha dalka mudane Ismaaciil Umar Geele haddii uu nasiibku uu ku dhool cadeeyay oo uu ku saamaxay in aad 26 sano majaraha dalka aad joogto ha kibrin ka joog mudane madaxweyne mudane Ismaaciil Umar Geele qooq ma jaba ninkiisa ayaa jaba ka joog mudane madaxweyne mudane Ismaaciil Umar Geele wax badso wax beelbay leedahay ka joog mudane madaxweyne mudane Ismaaciil Umar Geele dhubuqda hore dabana hays dambe ayay leedahay ka joogo dalku gurigaagii ma aha ka joogo hantidaadii ma aha joog walaalayaal waa inaynu madaxa kor u qaadno oon 49 sano oo saxariira afka aynu soo jarno waa inay 49 sano oo silica afka aynu soo jarno waa inaynu 49 sano oo saboolnimo ah afka aynu soo jarno madaxa kor haynu qaadno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.